inay noo yimaadaan inay ka soo qayb galaan toddobaadka dhaqanka ee qaswiyadka inay ma aragtay iyagu haddaana wax kale u dirin shaqooyin badan baa anaga qabanay almost 8 bilood hadda soo diyaarinayna toddobaadka dhaqanka oo ana wax kala qaban inay iyagu nagu taageeraan carruurta inay soo wadaan aqalka tusaan sheekada yimaadaan barnaamijka socda yimaadaan ilmaha buug u gadaan ma aragtay ay daawadaan ma aragtay waxyaalaha la soo bandhigi doono oo exhibition ka mid yahay waxyaalo ma aragtay kala badan oo kala nooc ah la keenayaa inay iyaguna wixii ay yaqaanaan soo qaataan waxaan niri qof walba hadaa dambiil taqaan soo qaado hadaa taqaano ma aragtay farshaxankaaga kus waxaan aan ka hadlayno dhan waa aniguna waxaan uga soo qayb galay qofku dhahayaa buugaygii anigu waxaan uga soo qayb galay dambiishaydii anigu waxaan uga soo qayb galay raradaydii marka waxaan rabnaa inaanu ma aragtay dhiiri galino in wax gacanta laga sameeyo oo qofku wax soo saari karo marka qof walba inuu ka soo qayb galo ilmaha la keeno ilmuhu daawadaan iskuulo badan baa noo soo socdo hadda already soo waxay yiri toddobaadka dhaqanka imaanayna ilmayoga in la keeno ma aragtay laguna baashaalo meeshaas oo la isku arko ayo ma santay Wajama Cultural Center. I would love to invite you all to our Heritage Week, Somali Heritage Week, coming from the 13th of October to 16th of October at the Kenya Cultural Center. Come experience the culture, the art, and the literature with us. You're all welcome. Okay, thank you. magacayga Maxamuud Suleymaan waxaan halkan uga soo gudbiyo fariin yar ummadda Soomaaliyeed waxaan hadduu Ilaahay yiraahdo qaban doonaa Somali Heritage Week October 13keeda ilaa 16keeda 2016 waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed inay ka soo qayb galaan barnaamijka hidaha iyo dhaqanka barnaamijka waxaa qaban doono xarunta cilmi-baarista ee Wajama Center bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Cabdiraxmaan waxaan ku magac dheerahay si naxariis leh waxaan halkan la wadaagayaa dhawaan inuu dhici doono 13 October ilaa 16 October oo dhici doona maalinta hidaha iyo dhaqanka Somali Cultural Heritage Week soo qaban qaabiyeen xarunta hidaha iyo dhaqanka baarista iyo qorinta waxaan leeyahay ummad aanan dhigaal lahayn waa dhaayo aanan indho lahayn sidaas darteed inaan annaga donation gareyno ama aan kor u qaadno dhaqankeena iyo hidaheena waa mid suuban dhaxal reebna inoo samayn karta sidaas darteed dadka isugu jira aqoon-yahanka leh ee Soomaalida ee waxgaradka ee culimada ee cuqaasha ee doctorinta ee siyaasiyiinta waxaan ka codsanaynaa inay nagala qayb qaataan maalintaasi sharafta badan ee aan soo bandhigi doono hidaha iyo dhaqankeena Soomaaliyeed aad iyo aad baa u mahadsantahay bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Ikraam Samriye waxaan ummadda Soomaaliyeed ku nool Nairobi ku bogaadinayaa inay ka soo qayb galaan barnaamijka hidaha iyo dhaqanka Somali Heritage Week oo la qaban doono 13 October ilaa soconaya 16 October ee qabanaysa xarunta jaamaca dhaqanka iyo cilmi baarista iyo hidaha